السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي وقالقة دمانتين وأن السلامي وحان السلامي سلامتي سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي إن سيدا أوكتين با إن أنا وحي دحي وحي سوكر دوا إن لسو وداقا marka gabar abaaye ayaa waxay nala soo wadaagtay in maxaa la dhahayay sheeg ay degan tahay dalka Soomaaliya gurina ay ka degan tahay guri oo ah sida caadada u aheeday horta hore sida inaan idin sharaxo waa marka hore filooyinka waaweyn waxaa lagu sameeyaa in ay isla degaan cidaha badan waxaa waaye marka waxaan ka wadaa gurigan waxaad ka degaysaa hal qol anigana waxaan ka degayaa laba qol markaasaad guriga dhan waxaa isla degan haddii la rabo halka guri 5 cidaa isla degan marka gabadha abaayada waxay noo sheegtay inay hal qol ka degtay guri filla ah reer horuu deganaan igu soo degtay reero badan oo guriga degnaay laakiin waxay la saaxiibtay gabar guriga degan oo mas'uul ka ah walaasheeda ay la saaxiibtay marka sidaas darteeda waxaa dhacday markaas inay sheeg ilaahay ku mas'uuliyadee gabadhii meesha mas'uulka ka ahayd guriga walaasheeda markii la saaxiibtay ay gabadhii ay tiri abaayo haddii dad marti yimaadeen waxaan rabaa inaad u caawiso furahaaga maadaama ay walaashay gurigeeda oo wadaadkeeda joogo inaan gurigaan macnaha haddii marti ay timaado markaas ayadaaba joogtay oo reedi ahayd moogtaa oo gurigeeda og markay ay furaha sii haysay guriga geliso laakiin markay baxayso ayay waxay tiri meeshaan furahayga ku jiraahe macnaha furahayga meeshaas ka baxso ma fahanteen gabadhi way soo baxday meelay aaday waa danaysatay gurigan hal qolay ka degan tahay asxaabi inaad fahantiin aan rajeynaya hal qolay guriga ka degan tahay gabadha kaleetana walaasheed laba qolay ka degan tahay maxaa dhici doona gabadhan meelay aaday furahina waxay gelisay meel balakoonka ka mid ahay aysan furahi u gelisay ee ayada ku xaraysa jirta maantaan waxaa yimiday gabadhii martiya u timiday gabadhii la saaxiibtay ee gabadha guriga mas'uulka ka ahayd la dhalatay marti markay u timiday abaaheele intay fa ku soo dhahday si gabadha abaaya noo sheegaysa waaye way soo baxday furihii la baxday furihii markay la baxday gurigay furatay guriga markay furatay ay guriga gashay maxaa dhici doona guriga markay gashay dadka martiya ay wadatana gurigay la gashay abaayo waxaa loo dhacay marka furaha oo albaabka furo kalaa ku xiran furaha kalena waa furihii armaajada armaajadayaa la furay lacagta ugu jirta armaajada intay la ekeeda aniga ma sheegin lacagta armaajada ugu jirtay ayaa lala baxay marka abaayo waxay leedahay aniga uma dhinac beeli karo inay martidu lacagta la baxday iyo inay abaayadan kale lacagta la baxday aniga ma sheegi karo iyo inay isla qaateen iyo iswada ogyihiin ilaahay waclan ilaahay yaa og anigu ma ogay leedahay marka abaayo waxay leedahay ila tali macnaha aniga ma cafiya lacagteeda waa arkaya inay qoftaan iga qaadatay ama ay qofkay ii keenta uu qaatay maxaad dhahaysiin ma cafi mase inaan daba laalaado ilaa qiyaamaha oon xooleyga aan cafin waayo abaayadan markay tiri walaalay aniga lacagteedii layga qaatay markay tiri maxaa la rabay inay u garawdo ay tiraahdo soor abaayo lacagtaada hadii lagaa xaday waa inaan kula raadiyaa ay la orado ee qofka ay guriga keentay ay tiraaho war saana dhacday maadaa sameeyey maxaad ii ceebaysay ay tiraaha maa laga rabay mase waxaa laga rabay inay sheeg ay la dagaasho waxay tiri dagaal ay siisay waxay tiri annaga tuguma nihin lacagna kaama xadin lacagna kaama arkin walaalay been ha iga sheegin marka abaayo maxaad kula tali laheeday maxaa dhihi laheeday ii sheeg xoolahaaga walaalay iska cafi miisaanka allah ku saare miyaan dhahaynaa mase ii sheeg ha cafinin ilaahay aakhiraha ku inqaabay maan dhahaynaa maxaan dhihi karnaa sida ilan taha waa ay sheekadan aniga leefkan aan soo geli jiray sheekadan oo kaleeto laakiin maanta leef soo ma gelinteeda kale waxaan ka cudur daaranayaa video baan soo duubay oo hadda oo cilad farsamo awgeeda iiga xumaaday barafadan ka dhigay waa ka bixiyey saacamal waxaan uga hadlayay arrintan marka walaak waa iga xumaayey waana ka bixiyey marka isla meeshii aan joogeyn
hadda beesheedin kasii bilaabay. Marka asxaabey maxaa dhihi laheedeen abaayadan maxaa kula tali laheedeen qofa aaminna aniga dhihi lahay mar dambe qofa aaminna dhihi lahay maadaama ay tan kugu dhacday isheeg waxaaga xishmadna aad weydoo lagu dhihi waayo abaayo iga raali noqo gurigaagaa la furay adoo ka maqana gurigaagii la furay gurigaagaa la galay markii la galo xoolahaagaa la qaatay xoolahaaga haba la qaatee maxaa dhacay in lagu inkiro in lagu aflagaadeeyo xoolahaaga lagaa qaatay gurigaagii adoo maqan loo dhacay oo la iska galay qofkaas maxaa kula tali laheedeen dhibaataysan ma ilaahay ku haraa dhihi laheedeen anu waxaan dhihi lahay miisaanka allah ku saaray ilaahay uu ka abuuray ee ku qalqay shalana ku siiyaa jooge macnaha ilaahay ku haran dhihi lahay idinkan ra'ligiina waa noo muhiim walaashiina inaad maxaa dhahaye una soo duceeya inuu ilaahay meel kale ka siiya xoolaheedii laga dafiray usoo duceeya aan dhihi lahay aniga saasaana jecelaha aniga inaan dadka ilaaha iska sabra in la sabrana waa fiican tahay ood xoolahaagii adoo arkaayo aad ka sabarto adoo ilaahay ku haraayo ogna ilaahay ku siiyo inuu joogo shalay berigana ku sii karo marka teeda kaleete is-aaminka saasna ma fiicna isleeyahay aniga in dadka xoog loo aamino xoog aad dadka loo aaminayo aniga lama fiicna ma fahanteen gabadhan hadda gurigaana isku barteen wayna aamintay aaminka maxaa ka yimid aaminka waxaa ka yimid inay xoolaheedii ama ay isla xadaan ay is og yihiin horta ilaahayaa og abaay waxay leedahay horta ana ilaaha og inay isla xadeen inay iyada kaligeed xaday ma sheegi karo maba sheegi karo aniga laakiinse inay idafarayso ay ileedahay xoola kaama arkin xoolana kaama qaadan hana aflagaadayna ay leedahan ogahay yaa laakiin ma ogi inay iyada qaadatay martida keensata qaadatay isla qaateen intaasna ma sheegi karo leedaha abaayo marka asxaabaysa idinla tahay maxaan dhihi lahayna iska sabar waxaan idinka sugaaya hadduu ilaaha yirahdo commenti inuu reebtaan duco iyo isugu jirto waano iyo inay mar dambe qof aaminin aniga saasaan leeyahay aniga Hidaayo Xasana waxaan leeyahay qof dambe ha aaminin furahaagana ha siinin gurigaagana sirahaaga goonigaaga aad kugu duugani qof yuu kaa soo gelin waayo gurigaaga hadduu qof soo gala adigana aad maqanta meel walbuu baaraya hadduu rabo meel walba wax ku qarsato farta gelinaya yaa maba jecla aniga gurigayga anoo maqan qof soo galo waayo gurigaaga waxyaabo badanaa kuugu duugan waxyaabo badanaa kuugu jiro gurigaaga waxaa fiican mar walba inaad isheeg aad foojignaato waa fiican tahay dadkana aad iska ilaalisid xigtadooda waa gooni qofaan kaa maarmin berigan waa gooni laakiinse cid walbo inuu gurigaaga dalaq soo yiraaho ee gurigaaga kula xakumo ee gurigaaga kula yeesho waa laga qurux badan yahay aniga saasaan qabaa abaayo horta intaasoo waanahan sii hayaa waanadan sii hayaa waxaa ah inaan gurigeeda cidaan ayada ahayn ama wadaadkeeda aduu la qabo oo nin ay leedahay inuu gurigeeda furo siday gurigeeda ugu xafidnaado xoolaheeda ugu xafidnaadaan furahaaskeeda hadda iyada haysato gurigeeda lagama xadi lahayn dadkay aamintay asaas yeelay marka cidaha aaminaan dhihi lahay idinkana fikradiina waa noo muhiim inaad abaayo xoogaa waane iyo isugu dartiin duco say xoolaheed uga sabarto oo miisaanka allah ku saara aan wada dhahno saas waay aniga ra'ligeyga saas uu leeyahay aniga markastana waxaa fiican inuu gurigaaga adig kugu ekaado ama wiil ahaw ama gabar ahaw gurigaaga ilbaabkaaga adig furihiisa jeebka gasho horey soomaalida ugu maahmaahday dheriga farabadiyo fud xaraariya fud ma taqaanin inta taqaan ha soo qorto macnaha commentiga loogu reebto fud waxaa laga wadaa maraqa hilibka xoolaha maraqa laga bixiyo maraqaas haddii faraha la geliyo gacanta la geliyo haddii fridge la geliyo xataa wuu uraa haddii gacanta la geliyo waa gacanta lagu isticmaalo laakiin oo macnaha aniga aan farta geliyo adiga aad gelisid heblo oo geliyo heblo ay geliso waa urayaa laakiin haddii ii sheeg qaado lagu isticmaalo hal qaado oo isticmaalo halkaas qaado oo kariinahoo la qalajiyey
haddaad inta geliso ku isticmaashay fridge aad geliso laga yaabeeba inuu hal bil ku jiro. marka waxa haddayna fara badnaynin waa fiican yihiin oo gacno badan ayna soo marin, waa wax kaliina oo fiican oo nadiif ah. laakiinse haddii gurigaaga dooradii lama qabaaye waxaad leeyahay nabadgelyo asxaabay. talo wanaagsan iyo waano wanaagsan wax badan aan idinka sugaynaa insha allah inaad noo keentiin. aniga gabadhaas anina commentiga aqrina ciidan waa aqri doontaa hadduu ilaahay yiraahdo. asxaabteeda quruxda badan waxaan leeyahay subscribe noo saara, gambaleelkana furta, commenti share xaggiina waa wixii ducaa hadduu ilaahay yiraahdo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bye. marka saaxiibka khiyaanoolaha iska ilaaliyaan dhihi lahay aniga. saaxiibka khiyaanoolaha oo maxaa la dhahayay maalintii wax kaa dhumaan kula danqanaynin, maalinta lagu dilana kula danqamaayo, waa khiyaanoole. hadda gabadha masaakiinta waa nin qosqosli saaxiibaa lala noqday, hadda gurigeedaa laga dhacay, xoolaheedaa laga dhacay, wixeeda dhanaa laga qaatay ay u haysataa. aniga intay ahayd lacagtii ma sheegin meeqay ahayd anigana ma dhihin, laakiinse guryaha laysla digaya idana dhibay keeneen. inkastee xagga dhaqaale ay tahay, xagga dhaqaale waaye guryaha laysla digaayo, waayo dhaqaalaha hadduuna kuu saamaxin inaad guri weyn adigu aad kaligaa kiraysato, waxaa kugu dhacaya tan oo kaleeto kugu dhacayso. laakiin waxaa loo baahan yahay adkaysi inaad samaysid iyo maxaa la dhahay jimo adayg, dadna aad wax ku darsanin. salaamu calaykum waxaa ahayn aadna ku darsanin, haddii kale gurigaaga lagu gudbaayaa, inta lagu qosqoslaa gurigaaga lagu gudbaayaa. markaas waxaa laysaga kaa dhigaya marka hore mu'mina laysaga kaa dhigaya, kabacdina xoolahaaga waa gudayin. waxaa loo baahan yahay marka inaad dadaashid, aqligaagana aad isticmaashid, iskalena ilaalisa abay la buujiilay ee rabto xoolahaaga inay kaa xado. inta kula qosasho kula saaxiibto gurigaaga ku dib dhaafayso, haddii aad maqantaa xoolahaagana ku ilaalihayna rabto inay kaa qaadato. fahanteen? marka asxaabay gabadhaas walaashayna waxaan rabaa inaan dhahno miisaanka jig allah kuuga siiyo, macnaha kuugu culaysuubiyo qiyaamaha ilaahay miisaanka allah kuu saaro, xoolahaaga sadaqa allah kaaga dhigo. tan iyo mid lamidana ka fiirso kuna waana qaado. marka gabadhaas ay la wadaagtay sheekadaas magaceedana ma rabo inaan sheego, magaca idinka waa u bixi kartiin, anigana waan u bixin doonaa insha allah. laakiinse videogan waxaa ugu magac daray lacagteeda ayaa laga xaday. hadda lacagteeda ayaa laga xaday, ciday u haysata mataa qofka xadda ma taqaano, laakiin qofka aniga waxaan dembiga dusha uga tuurayaa qofkii guriga furay, albaabka qolkeeda qofkii furay aan macnaha dembiga dusha uga tuuray ayaan leeyahay qofkaasaa xaday, maadaama isaga uu gacmihiisa uu cisho waayey guryaha dadweyne dhaafi waayey. waxaan aniga dambiile ka dhigayaa gabadhii u bareertay guri islaameed inay furto. subxaan allah, guri islaameed ilaahu rabbi raxmaan inta furiisa qaata aana furin guri islaameed. haddaa fur horta haddii aada xadin xataa waad xadday, qof islaameeda guriga gelisay, furiyaad qaadatay, waad furtay. marka gabadhaas waxaan leeyahay waa mahadsantaa abaayo, maadaama aad nala soo wadaagtay. qof dambana way ka waana qaadanaysaa inay qof furaheeda ku aaminto, qof wax ugu darnayn inay furaheeda ku aaminto ee gurigeeda u ballanqaday tiraaha fur gurigeyga waa geli karta fasaxad u tahay. marka abaayo qaladkeeda xoogaa qaladka dhinaceeda leedahay, qaladka ayada mudasho waa ka saarayna. gabadha kaleetana waxaan leeyahay hal midaan leeyahay, gabadhaas haddii videogan ay aragto hal midaan leeyahay, halka midaan dhahayo waxaa waaye inta ilaahay ka cabsatid gabadhaas xoolaheeda u gudto oo xoolaheeda sii aan leeyahay. fahanteen? haddii kaleete icafi dheh haddaad xoolo yihiin walaalay macaan, icafi dembiilaan ahay, dembigana waa galay, icafi dheh ya maxaa weyse hada tuugadaada iska lahaa. haddada waana qaadanin icafina aada lahayn, xoolihina aada gudaynin, haddaada awoodina cafis aadan dalbanin ya qofkaaga wax ka xaday ama aad dishay ama aad dhibaataysan, haddii aadan macnaha ii sheeg aada cafis weydiisan ku cafina ilaahay ku cafi maayo, waayo qofkaa dembiga ka gashaaba soo taaga sooma. marka asxaabay aniga intaasaan ku darsaday
inta kalena adinkaa laydinka sugayaa inaad commentiga aadna gabadhaas aad waxaad macnaha wax yaro waana ah aad kusoo dhahdeen oo oo wax ku ool ah ayadoona wax laga sheegaynin oo la ceebeysanaynin ama wax loo dhimaynin inkastay iyada gurigeeda ay dayacdaan isleeyahay aniga maasha allah anaga dhanaan dayac iska dadkan iska aaminaa waa kaasaha waxaan rabaa maadaama kaamirada iga dintay oo dib la-aan camal iga tahay asxaabey marka asxaabey waxaan rabaa inaan idin macsalaameeyo sheekadana magaceeda wuxuu ahay lacagteeda ayaa laga xaday maadaama lacagteeda laga xaday wax u garaabana i weyday annaga u garaaben waxaan leenahay sabar iyo imaan allaha kaas iyo miisaankana allaha ku saara sadaqana allaha kaaga dhigo marka asxaabey waan idin macsalaameynaya maadaama ay hadaaya fiidiyowgii hadaaya uga xumaado uga halaabay kanaan maxaan dhahayay idinkaga tegayaa maadaama hadda codkeyga la maqlaayo hadaaya codkeyga la maqli waaye waxaan leeyahay nabadgelyo asxaabey talo wanaagsan iyo waano wanaagsan wax badan aan idinka sugaynaa insha allah inaad noo keentiin aniga gabadhaas anina commentiga akhrina ciidan waa akhri doontaa hadduu ilaaha yiraahdo asxaabteeda quruxda badan waxaan leeyahay subscribe noo saara gambaleelkana furta commenti share xaggiina waa ay wixii ducaa hadduu ilaaha yiraahdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bye